soo dhawow maalinta shalay ahayd waxaa heshiiyey ama hadalkooda soo afjaray doodii u dhaxaysay soo dhamaatay xisbiga SPD iyo Unionka. xisbiga Unionka waa xisbiga CDU CSU iyo xisbiga hadda talada haya SPD ayaa shalay waxay ku heshiiyeen arrimo dhowr ah. arrimahan muddo la iskugu dhignaa oo madaxa la iskugu jiray laakiin shalay toole ayay isku raaceen ama ay ku midoobeen. arrimaha waxaa ka mid ah arrimihii ninkii Merz uu soo jeediyay intii doorashada la qabanin ka horba oo ahayd in qaxootiga madaxa looga istaago. oo koow waxaa ka mid ah in xuduudda la iska celiyo oo dadka maangeliya doonka markay xuduudda Jarmalka imaadaan in xuduudda laga celiyo laakiin waa haddii ay ogolaadaan wadamada diris kala ah Jarmalka. taasna hadda waxa dhaqan galay ma ahan laakiin mustaqbalka ayaa la yiri. labo waxaa ka mid ah in keenida dadka loo keenayo dadkan heesto qaxootinimada ama subsidarka ah in muddo ah la joojiyo. muddada laakiin lama cayimin. muddada lama yaqaano laakiin waxaa la waa in la joojiyaa. sidoo kale waxaa la sheegay lacagta ugu yar lagu shaqeyn doono 2026 inay noqoto ama ay gaarto lacagta 15 euro saacadii. waxyaalaha qaar markaa fiirisid waa waxyaalaha ay ku campaign gareynayeen xisbiga SPD iyo xisbiga CDU ama ninkan Merz ama Olaf Scholz waxa ay sheegayeen ayaa hadda meesha ku qoran waxa ay ku heshiiyeen uu ka mid yahay. alashan waxyaalaha qaar waxa laga soo qaatay ninka Merz asaa rabay in xuduudaha la xiro in dadka in loo keeno dadkooda la joojiyo ninka rabay waa asiga. sidoo kale in lacagta laga shaqeynayo Jarmalka mushaarka ugu yar saacadii inay noqoto 15 euro waxaa rabay ninkan SPD hogaamiye Olaf Scholz. marka waxyaalaha qaar markaa fiirisid waxay noqdeen in ay u badan tahay waxyaalaha ku campaign gareynayeen. alashan SPD wuxuu iska dhigaa nin u roon qaxootiga oo garab siinayo laakiin markaa fiirisid no. hadal muhiim waxaa kale oo ka mid ah waxyaalaha lagu heshiiyey oo shalay toole ay qalinka ku duugeen labada xisbi in dadka diidmada heesto ama dadka in la celiyay qasab tahay in booliska ku shaqo galaan oo dadkaas in la celiyo dad badan la celiyo oo la boobsiyo. iyadana waa ogtiin waxa ka campaign gareynayay ninkii Merz ahaa inuu dadka xabsiyada uu ku celin doono oo because meel xabsi la gelin doono xorriyada laga qaadi doono inta laga celinayo. marka hadda waxay u badan tahay marka in xisbiga CDU iyo xisbigan SPD inay samaysan doonaan coalition ama xisbi wadaag ayaga inay noqon doonaan oo xisbi wada jir ah ama dawlad wada jir ah inay samayn doonaan ay qaybsan doonaan wasiirada ka shaqeyn doono dalkan Jarmalka 4 sano soo socoto. laakiin waxa ra'iisul wasaare noqonayo xisbigii guuleystay Unionka uu hogaaminayay ninkii Merz ahaa. Merz ayaa wadanka wuxuu ku noqon doonaa ra'iisul wasaare laakiin SPD ayagana way la sameyn doonaan xukuumadda ama dawladda cusub. marka waa arkaynaa wixii ka soo baxay isla joogna.